sano oo xidhnaa Cabdi Ilay wuxuu u muuqdaa inuu xorriyadiisii dib u heli doono jigana iska soo xaadirin doono muxuu ka soo doonaya waa deegaankiisi yaa ka mamnuucaya haday dawladda dhexe haysatay haday sii deyso marka inaga xidhanayna markaas ma يا حرني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن الداود يا السود وهذا ومركلة ولكن هذا كرامة هل كلا طبعا قد أولا سنة وبرتن يوتيوب ككل هذا كرامة هذه أي تهمر كوجوري سادنا صوب وقتو فضلا سبسكرايبتين وشرف ريح كمبلال كعس نقاقف كوجوري يسوق جران مقالة دي عديك كل الدوان يحيسها لأن هلكم سوق بينه هذه هذورين ولو شوكتنا آد أيضا ما هتنتهي السود وو مقال كان لايك مركزي إنه قبل سي وبهو بالشدة وجاله halkan maanta waxaan ku hayaa runtii sidaad hordhaca ku soo aragteen ba muuqaal la socotaan ba maxaabiis kala duwan ayaa waxay ku xirxiran tahay magaalada Addis Ababa waxaana kamid ah madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ay dadka Soomaalidu yaqaanaan Cabdi Ilay Cabdi waxa la qabtay bishii August ee sanadkii 2018 halkaas xilligaasi oo aan ilaahay xilka laga tuuray kadibna uu xilka yimid madaxweynaha haatan jooga mudane Mustafa Maxamed Cumar hadaba Cabdi markii la qaaday ee jigjiga laga qaaday maalmo uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa kadib waxa loo taxaabay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya inta xilliga wixii ka dambeeyayna waxa uu ku sugnaa ama uu ku jiray xabsiyo kala duwan oo ku yaala magaalada Addis Ababa gaar ahaan xabsiga ku yaala magaalada Addis Ababa xaafadda qaaliti la yiraahdo ayuu inta badan laga warhay oo ku jira hadaba bal waxaynu eegi doonaa maalmahan waxa jira hadalhayn badan oo baraha bulshada la isla dhaxmarayo mana aha markii koobaad oo hadalhayntaasi ay dadka Soomaaliyeed baraha bulshada ku wadaagaan sidoo kale hadalhayntan waxa kamida oo dadka aad u qaada dhigaya hadalhaynta xabsiga Cabdi ee kamida qoomiyada Axmaarada iyo waliba qoomiyada kale oo markaas iyaguna si weyn baraha bulshada ugu lafaguraya hadaba bal hadalhayntaasi iyo waxa ay la xiriirto ayaynu eegi doonaa waxa ay la jooga saaxiibkay Guuled Ibrahim Alifli waa mahadsantahay saaxiibkay Nuur daawadayaasheena waan salaameynaa maalmihii la soo dhaafay hadalhayntan ku saabsan siideynta maxaabiista way jirtay isla markaasina warbaahinta Itoobiya aad bay u qaada dhigaysay waxa ka soo dhex muuqday shalay iyo daraadba isa soo tarayna in iyadana la siideyn rabo madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ilay siideyntaas waan u tagi doonaa laakiin toddobaadkan waxaa la rajeynayaa in isbeddello waaweyn ay ka dhacaan guud ahaanba Itoobiya Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisana isbeddello badan iyo isku shaandhayn lagu sameeyo isla markaana la hirgeliyo heshiiskii nabadeed ee TPLF-ta iyo dawladda dhexe qaybtii saami qaybsiga marka ilaa shalay warbaahintu waxay hadal hayeen siideynta maxaabiistaas okay aanu imaado siideynta laakiin arintan hore ka dhawaajisay saami qaybsiga yaa saami qaybsanay horta de ururkan TPLF ee dagaalka la galay dawladda dhexe waa laga nadiifiyay dawladda dhexe iyo xilalkii ay ka hayeen markii uu dagaalku socday marka hadii heshiis yimid oo dawladda dhexe iyagu ay heshiiyeen waxa khasaba saamiga ay dawladda dhexe ku lahaayeen in uu soo laabto waana qayb kamida wada hadaladii South Africa iyo Nairobi ba ilaa haddana socda in ay xilalkoodii lagu soo celiyo waxa la hadal hayaa in la siinayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya qoomiyadaasi Tigreega markii hore waxa hayay nin Amxaar ah oo qoomiyada Amxaarada ka soo jeeda ahna aha wasiirka arrimaha dibadda hadda waxa la leeyahay waa laga masaafurin rabaa wadanka oo meelahaas diblomaasi loo magacaabi rabaa waxyaabaha xusida mudan waxa kamid ah Abiy Ahmed dadkii isaga la soo dagaal galay ee daacadda u ahaa isla markaasina haduu guul gaaray qaybta ugu muhiimsan ka lahaa dhamaantood si aan looga aargudanin uu soo dhaafiyay dalka taliyaasha xitaa ciidamada wuxuu ka dhigay safiirro ka dhigay marka hadda markii kooxdan TPLF-ta marka ay nabadda qaateen ee heshiis la galay waxa khasaba in saami qaybsigoodina la siiyo dibna loogu soo celiyo dawladda dhexe iyo xilalkii ka hayeen waxaana la hadal hayaa inay ra'iisul wasaare ku-xigeenka qaadanayaan taa waxa barbar socota hadalhayn badan oo dhanka maxaabiista ku saabsan hal mar waxa ka soo dhex muuqday madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo la leeyahay waa la sii deyn rabaa waxaas inta ka horeysa in laba bari kadib
la filayo in baarlamaanku uu fadhiisto ama maalin kadib la filayo in baarlamaanku uu fadhiisto baarlamaanka Itoobiya si rasmi ah loogu dhawaaqo in kooxda TPLF laga saaray liiskii argagixisada marka hawshu hadda waxay u egtahay gabagabo iyo in wax badan la isla soo dhiraandiriyay waa tii maqala ay dawladdu wafuud u dirtay halkaasi la tagay waa tii dadkii dhexdhexaadinayay oo ay kamid ahaayeen madaxweynayaal hore Afrikaan ay iyadana maqala tageen iyadana halka wax la isku soo ogaaday marka hadda gabagabo u dhowdahay way marka la fiiriyo marka dhinaca maxaabiista oo kale hadda Cabdi oo kale marka la yiraahdo hadalhayntiisu waxay ku xiran tahay oo heshiiska TPLF la galo siideentiisu mise si gaar ah oo isaga ama dambi loogu waayay ama dambi loogu helay ama loo cafiyay loo siideynay runtii dad xogogaal waxay noo sheegeen in ay TPLF ku dartay shuruudahooda ama dadka maxaabiista ee wali kaga baaqiga ku ah xabsiyada in la sii daayo waxay ku dareen Cabdi Ilay marka goortu Tigreega noqday garan maaye laakiin si adag bay ugu dhagan yihiin ninkaas in la sii daayeen geed gaaban iyo ku dheerba way u fuuleen marka Abiy Ahmed nagu ogolaaday warar baaleh in la sii daayo marka 5 sano oo xidhnaa Cabdi Ilay wuxuu u muuqdaa inuu xorriyadiisa dib u heli doono tigtigana iska soo xaadirin doono muxuu ka soo doonaya waa deegaankiisi yaa ka mamnuucaya haday dawladda dhexe haysatay haday sii dayso marka inaga xidhanayna markaas ma yaa xidhanaya dawladeena mid dawladda hadda xidhayso marka u yimaado yaan fiirinaynaa laakiin waxaan ku ogahay waxay dawladda dhexe wax xidha waxna sii daysay haday dawladda dhexe soo dayso oo ay tiraahdo orod deegaankaagii aad iyo meeshaad rabtay aad xor baa tahay oo uu jigjiga yimaado waxaan ku hubaa 90% in ninka cid la hadli kartaa aysan jirin sababtoo ah maxaa ka wada waxaas waxaan ka wadaa inaga la haystayaal baan kor un baa wax laynooga soo yeedhiyaa korkii laynooga soo yeedhinaya haddii laga soo daayo Cabdi Ilayna cid taabanaysa ma laha hadda maalin dhaweyto waxaa la yidhi amar ha la yimaado madaxweynayaasha deegaanada maqale ha la isugu tagaa la yidhi maqalada Tigreega madaxweynaha deegaanka Soomaalida wuxuu sameeyay mataqaana iyadoo hawl badan qabyo tahay oo looga yeeray xaggan iyo maqalaan looga yeero la yidhi amarka madaxweynayaasha kililadu ha yimaadaan ya hawshii iyo arkay wajigu siin waayay nimankii inuu aado war dheer BCC daay iyo bari wuxuu xariga ka soo jaray mashaariic aan dhamaanin mashaariican gebigooduba dhamaanin oo war dheer yiri xariga ka soo jaraya mashaariicna uma soconin wuxuu ka cararayaa inuu maqala aado marka aan ku dhameeyo xaqiiqan ku sheegaya xaqiiqada mashaariicdan ku dul istaagaya mashaariicda xariga laga soo jaray waxa ku jira leerka 24 saac laakiin madaxweynuhu mashaariicda daqiiqadii gaari leerka 24 saac ee war dheer xariga laga soo jaray tiirasha xariga laga jarayo anoo 2 sano jira yaa la taagay anigan kula hadlaya oo 2 sano bas jira yaa tiirasha war dheer ee madaxweynuhu xariga ka soo jaray yaa la taagay waa mashruuc qabyo ah leedku wuu soo gaaray waa run laakiin leed magaalada oo dhan la gaarsiiyay oo tiirashii uu watay ee cusbaa loo taagay oo magaalada loo qaybiyay oo dhameystiran yaa xariga laga jaraa soo mashruuc markuu dhamaado xariga laga jaraa soo mashruuca war dheer ee intaas loogu talagalay inta loogu talagalay inta hadda xariga kaga jaray madaxweynuhu ma aha wuxuu ka soo cararayay maqale marka mashruucan xariga laga jaray leerka ma inaadahaya ana haya mashruucan xariga laga jaray ee leerka waa run horta leerku wuu soo gaaray laakiin ma dhamaanin tiirasha xariga laga jarayana waa tiirar dhowr iyo laba si ku meel gaar hadii loo sii jaro dad maadaama baahi weyn u qabeen sida ku meel gaarka horta soo wixii in la dhameeyo kama horeyso mashruuca marka xariga laga jaray waa in la dhameeyo isbitaalka oo dheer laftirkiisa isagoo qabyo ah yaa xariga laga jaray maya yaa la yidhi madaxweynihii baa soo socda waxaa ka dhimanaa qaybo dhan baa ka dhimanay wax 2 cisho ka yar muddo yar ah yaa lagu boobsiiyey dadka qaar
waxay tuun gelinayaan waxaas la boobsiiyey ee qaybta ugu dambeysay tayadiisa laakiin mashruuca isbitaalku intiisa badan isagu wuu dhamaystiraa waa xaqiiqa waxbaase ka dhimanaa kansar leebka ee wardheer tiirashii anoon 2 sano bas jira la taagay iyo madaxweynuhu xarga inooga jaray isagoo ka cararaya in xagga looga yeedho feeri arrintan ku soo celcelisay madaxweynaha xagga looga yeedhay xaggan uu soo baqday maxaa lagu cadeyn karaa madaxweynayaasha kale miyay tagaan meesha طبعا kulankaas inuu si farsamo u baaqday ma sheegi karo laakiin warkaas markuu soo yeedhay madaxweynuhu meeshu maqalo wajiga siin lahaa adigu waad ogtahay ka hortaagan marka maqalayna wajiga si hadii la heshiiyay ilaa waa la heshiiyay marka hore moogtay abiba ninkan uga dil badnaa niyo isaga la weydiin waxa kaloo la weydiin sababtaad ii weydiinaysa Cabdi Ilay haduu yimaado jigjiga amnigiisa su'aasha u gelinayso hadii dawladda dhaxwa soo fasaxday marka waxaan arkay madaxweynuhu horta ninka ay saaxiibka yihiin ka horeeyay kursiga ugu horeeyay waxyaabo badan oo uu sameyn jiray iyo inoogu celiyaa Cabdi Ilay oo dabaasho oo tartanka dabaasho ka qayb qaata marka jirtay isagoo kubadda ciyaar marka jirtay wixii oo dhan wuu inoogu celiyaa madaxweynuhu shalay waxaan daawanayay isagoo fiiq ku ciyaaraya garoon kubad ku ciyaaraya marka hadday isu yimaadaan oo dawladda dhexe ay soo fasaxdo waxaan dhihi lahayn hoos wada hadlo idinku heshiis waa tahay daawadayaal waxaan filayaa inaad markaasi muuqaalka aad ka bogateen ra'yigiina waa inoo muhiim commentiga ku muujiya haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatana fadlan subscribe ugu sharaf riix gambaleelka casna qofka ugu horreeyay soo gaaraan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha leh halkan ku soo gudbino haddii aad hore inoola joogtayna aad ayaad u mahadsantahay madaxan waad noo saaran tahay dhammaantiinba waxaan ka codsanayaa markaas inaad muuqaalka inoo like garaysaan oo like-tu muhiim bay u tahay muuqaalka way socodsiisaa haddii aadan weli kusoo biirin barahayga kale ee bulshada sida Facebook page-kayga iyo sidoo kale bartaan ku leeyahay TikTok-ga fadlan inoo soo follow garee halkaasna waxaan idinku soo gudbin doonaa muuqaallo runtii xiiso leh oo aan filayo inaad markaasi ka heli doontaan tan iyo muuqaalkan mid lamid ah intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh